Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in shalay rasaasi ka dhacday xarunta ciidanka militariga ee 21aad ee ku taala magaalada Dhuusamareeb. Sida aan wararka ku helayno, rasaasta ayaa dhex martay ciidamo ka tirsan militariga xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka nabad sugidda oo doonayay in xerada ay galaan xilligii gudaha xerada uu ku sugnaa madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor. Israsaaseyntaasi ka dhacday afaafka hore ee xerada 21aad ayaa waxaa ka dhashay dhaawac soo gaaray 2 askari, waxaana wararka ka soo baxaya sheegayaan in mid ka mid ah askartaasi uu u geeriyooday dhaawacii. Saraakiisha ciidanka ayaa si degdeg ah ugu guuleystay inay xaaladda dejiyaan. Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa markii dambe loo galbiyay xarunta madaxtooyada Galmudug kadib markii lagala cararay xarunta ciidamada ee rasaastu ka dhacday. Maamulka Jubbaland ayaa weli wada abaabulka dagaal ee ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan degmada Beled Xaawo iyo degmooyinka kale ee ka tirsan gobolka Gado ayaa la wareegay in ciidamo ka tirsan amar qaata dowladda federaalk Soomaaliya. Ciidamo badan ayaa maamulka Jubbaland ka qaadeen magaalada Kismaayo oo ayaa la sheegay in ay gaareen degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana ciidankaasi Jubbaland doonayaan inay ku biiraan ciidanka Jubbaland ee jooga magaalada Mandheera. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo hadda ku sugan degmada Dhobley ayaa la sheegayaa in halkaasi uu ka wado abaabul uu ku doonayo ciidamo badan uu u diro dhinaca Beled Xaawo si ay garab u siiyaan ciidanka Jubbaland ee halkaasi jooga. Ciidamada daraawiishta ee Jubbaland oo dhowaan laga saaray degmada Beled Xaawo ayaa isku urursanaya meel u dhow magaalada Mandheera, waxaana ciidanka doonayaan inay mar kale dib ula wareegaan degmada Beled Xaawo. Maamulka Jubbaland ayaa horay ciidamo ugu direen magaalada Dhobley, waxaana ay gaareen degmada Beled Xaawo duleedkeeda, waxaana maamul Madoobe wada guluf uu ku doonayo in degmada Beled Xaawo iyo degmooyinka kale ay hoos gacanta ku dhigaan. Caalamka ayaa sare u kacday kadib markii uu kordhay dalabka ka imaanaya dalalka ay dagaaladu aafeeyeen, waxaana sidaas Isniintii sheegay cilmi baarayaal ku sugan Sweden ee dalka Mareykanka, ayaana kan ugu hubka dhoofinta badan caalamka, wuxuuna si dheeraad ah u kordhiyay dalalka Ruushka iyo kan ku xiga. 5 sano ee u dhaxaysay 2015 ilaa 2019, dhoofinta hubka caalamka ayaa sare u kacay oo qiimihiisu gaaray 5.5 boqolkiiba markii loo eego 2010 ilaa 2014, sida uu sheegay Machadka Daraasaadka ee Nabadda Caalamka SIBRI ee fadhigiisu yahay magaalada Stockholm. Guud ahaan, dhoofinta hubka waxaa sare u kacay dalalka hubka soo saara, waxaa kordhay dalabka, waxaana sida IFB ay u sheegtay Peter Wilson oo ah cilmi baare sare kana tirsan hubka laga soo dhoofiyo Mareykanka ayaa sare u kacay 23 boqolkiiba, taasi oo saamiga Mareykanka ku leeyahay dhoofinta hubka caalamka ee u dhigtay 36 boqolkiiba inta u dhaxayso 2015 ilaa 2019. Mareykanka ayaa hub culus u dhoofiyay 96 dal oo caalamka ka mid ah. Kalabar hubka Mareykanka dhoofiyay waxaa la gaarsiiyay dalalka Bariga Dhexe, iyada oo bar ka mid ahna loo dhoofiyay Sacuudi Carabiya oo dalka ugu badan caalamka ee hubka soo iibsada. Hubka Sacuudiga soo iibsado ayaa sare u kacay boqolkiiba 30,
inta u dhaxayso 2015 2019 markii loo eego 2010 ilaa 2014 Sacuudiga ayaa hadda la geeyay 12% dhammaan hubka caalamka ee la dhoofiyo.